farsamada gacantu waa mid ay ku tartamaan wadamada caalamka ee horumarka gaaray balse Soomaalidu waa mid aan ku tixgelin inta badan dadka ku shaqeysta xirfadda gacanta. Tumida birtu waa xirfad ay dad badan ku maareeyaan noloshooda, waxay soo saaraan qalab waxtar badan u leh ummadda Soomaaliyeed kana tayo fiican kuwa laga soo dhoofiyo wadamada shisheeye ee qaar, sidaas oo ay tahay ma helaan wax dhiirigelin oo lagu amaanayo shaqadooda, laakiinse qaarkood waxay la kulmaan faquuqid iyo in lagu yeero magacyo aan munaasib ahayn oo ay ku mutaysteen shaqadooda ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda. maya bulshadu waxa weeye way iska macna badan tahay ninku culumaha wax fahmayo mooyaane ninka kaleeto tumal ayuu macnaha kugu tilmaamaya ma fahanti tanaguna waxa weeye professionkeenu weeye ka xishoon mayno xagga tumalnimada macnaha waxa weeye ka xishoon mayno professionka ilaahayna baro weeye ilaahay baa maaragtay yani nagu deeqay waxa weeye ayadaan maaragtay wax ku soo saarnaa bariiskeena ku raadsana ma aha shaqo sahlan garaacidda birtu oo ay ka soo saaraan agabyo badan inta badanna ma haystaan qalab ka saacida inuu adeegsadaan qalabka balse gacantooda ayay maalaan oo ku soo saaraan qalabkaani marnaba uguma niyad jabaan shaqadooda ficilada aan wanaagsanin oo kaga imaanaya bulshada kale. waxaan socdaal ku tagay meelo badan oo ku taala magaalada Cadaad oo looga shaqeysta xirfadda birtumida. waa shaqo adag oo ay bulshada u hayaan Soomaaliyeed laakiinse aysan ku helin wax dhiirigelina. dadka ku shaqeysta tumida birta oo qaarkood aan la kulmay ayaa sheegay in laga koobiyay farsamadooda kadibna la keenay agab la mid ah kuwa ayaga ay soo saarayeen, taas waxa iga shakisan yahay wadamada shisheeye. badalkeeda waxa qiimo dhac hoose ku yimid agabkii kale iyaga laga iibsan jiray. magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Nuur baa la yiraahdaa magarad. waxa weeye bulshada waxaan u qabanaa shaqada u muhiimsan baan bulshada u qabanaa ayadoo tacdiyo badan oo ka jiraanoo dhibaatadeedu badan tahay shaqada caqabadaha lagala kulmaa ma yara nolol maalmeedkana waxa weeye hadda xilliga jira waxa weeye waa iska maaragtay yani qofba wixii ilaahay maaragtay si uu ka helaa laakiin ma nuxur badno ayadina way dhib badatay wadankana waxa yimid alaab yani waxa weeye raqiis ah oo waxa weeye xagga dibadda laga keeno oo la soo warshadeeyo waxa weeye lagana yaabo koobigeena inuu ku timid markii hore oo actionkaas annagana laga qaaday alaabtii waa la soo koobiyay waa la keenay sidaas calaaligeed waxa weeye annagii marka alaabteeni waxay noqotay waa la iska nacay oo dadku waxa weeye alaabta sarqiiska un bay gataan waa ka caqabadaha intaas la eegan kala kulnaa tacaddiga jira marka ma yara aynaga waxa weeye shaqadu way dhib badan tahay shalka shay ugu yar hadda matalan mid kamid ah ayaga 4 biri baa la tumaya ama 5 biri baa la tumaya waxa laga yaabaa haantaan oo kaleeto waxa la tumayaa ilaa 8 biri ilaa 10 biri baa la tumaya waa ka ayaduna lacagteedu waxay joogtaa marka ugu baato $60 $50 ayuu Axmed Jaamac Xuseen waxaan ku gudaynaa shaqadaas birta garaaceeda oo nolol maalmeedkan aan ka raasano waa u jeedaan oo sida u dhibka badan baan ku jirnaa shaqada aan ka qaban halkan sida sabardaha ceesha lagu qodo fayskooda midiyaha ariga lagu qasho timidooda faasaska fargeetooyinka burjikooyinka shaqada noocaas aan ka qabanaa. waxay dalbadeen in laga caawiyo qalab u fududeeya inay soo saaraan qalabkani oo hadda gacantooda ay ku soo saaraan taasna ay muddo dheer ku qaadanayso samayntooda caqabado badanna ay kala kulmaan inta ay ku guda jiraan samayntooda. waxa weeye annaga waxa laala wixina lagaga baahdo ayaana laga helaa oo xagga birgaraac ah maadaama aan nahay ururka birgaraac waxa weeye marka tacaddiga jira wuxuu yahay baashaanu aad iyo aad bay u dhib badan tahay wax fududeeyana ma aanu hayno anagu ma garata ayadoo markii sidaas waxa weeye ayadiina dhib badatay nagana waxa weeye dadku ama uu iska taal yareynaya ama waa iska jiranaya ma garata waxa weeye marka sida cala ajligeed haddee waxa weeye haddii maaragtay yani caawiyayaasha waxaan maaragtay ka codsanaynaa qalab noo fududeeya inay maaragtay yani waxa weeye nagu saacidaan oo intaas maaragtay yani waxa weeye nagu taageeraan ka codsanaynaa caawiyayaasha cid kastoo farsamadaas gacanta oo birta garaaca nagu taageeraysa waxaan ka codsanaynaa haddii nagu taageerayaan qalabka sida lagu shaqaysto soolarada bateriyaasha dabayaasha qalabka diilimada birta waxa lagu qabto waxyaalaha noocaas oo kale taa inay naga taageeraan. Mahad Nuur Axmed RTN magaalada Cadaado.